dad rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaya. Waa sugaya warsame markay baabuurka ka degeen ayay meel gaara isla joogsadeen iyagoo ballamaya. laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa halkudhegyada ay ku dhawaaqayeen iyo habsamida ay u socdaan ayay la dhaceen. waana ay iskaba raaceen oo dhowr daqiiqadood la socdeen. waxay odayaashu goosteen inay si wanaagsan u hubsadaan waxa meesha ka socda. sidaasna waxay ku ogaadeen sababta banaanbaxa. aad ayay amuurtaasi odayaashii u saamaysay kadib markii si wanaagsan loogu warramay. waa suge oo tallaabadaasi af Soomaaliga laga qaaday ka faalloonaya ayaana saaxiibkii ku yidhi, warsamow, allay leh reer magaalkii waxay afaf shisheeyaba ku dhaqmaan, hadda ayay runta u soo degeen. waxaana sideedaba la yidhi ayuu yidhi, lama huraan waa caws jiilaal. waa suge, warsamow, af carabigii ma waxaad raacisay afafkii shisheeyaha mise waad ka reebtay? ma waxaa isaga kaa darsamay shisheeyaha iyo sokeeyaha? carabta iyo Soomaalida ayuu isagu u arkayaa laba dad oo ay isku keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaatay oo keliya, mise af Soomaaliga iyo diinta? warsamaa yidhi, inkastoo aan ku afgaranayo, haddana waxaan carabta la wadaagnaa wax ayan berigoyn karin, biyana mayri karin. wuxuu aad u qiimaynayaa oo kala fuquuqa u diidayaa dhaqanka diiniga ah ee xididaystay iyo isdhexgalka labada dad. cabbaar ayay labadii oday ku murmayeen af carabiga shisheeyanimada ka daa iyo ka dayn maayo. iyagoo aan isla meel dhigin ayuuna warsame dhex galay faallo kale oo ku saabsanayd bannaanbaxa. si weyn ayuu warsame ujeeddada bannaanbaxa u dhuuxay, ulana dhacay. laakiin markuu ogaaday in dadkaa faraha badan uu u soo baxay farxad muujin lagu ayidayo qoridda af Soomaaliga, ayay dib ula soo xumaatay jawaab uu wiil yar siiyey mar ay odayaashu weydiiyeen sababta dadka isu keentay. wiilku waxa odayaasha ku yidhi, dadkan waxa isu keenay waxba kama gashaan, mana garan kartaan. wuuna iska dhaqaaqay. warsame waxay la ahayd inaan marna looga maarmi karin talo iyo tallaabo af Soomaaliga ku saabsan. aad ayuuna wiilkii ugu carooday. duq wuxuu amuurtaasi ku xusuustay gabaygii diini gurey ee ahaa, afku waalid buu leeyihiiyo odaya waaweyne waxay ururinayeen halkiiyo aabbihii dhalaye, abbaartiisa kama leexanina way ebyeen shalaye, irankiisa hoosiyo guntaa lagu abuuraaye, or iyo qaylo kuma fiicna iyo kaa anaa iriye. warsame iyo waa suge iyaga ayaa isugu dambeeyey dadkii baabuurka ka degay. intayan kala tegin waxay isu sheegeen danta uu mid waliba magaalada u yimid, dadka u jooga iyo meesha laga helo. isbarasho xiise leh ayaa dhex martay labada oday. waxayna kala tegeen iyagoo isleh, ilaahay mar kale hana kulmiyo. sidaas ayay ku kala dhaqaaqeen. wuxuuna mid walba markaasi bilaabay inuu tiigsado halkii ay degganaayeen reerihii uu u soo muraaday. warsame wuxuu u soo danaystay walaalkii oo laba xidigla ah oo ka tirsan xoogga dalka lana yidhaahdo dirir. wuxuuna habeenkaasi marti u ahaa reer aqoon iyo dhalyo ka dhaxaysay si uu uga tilmaan qaato. subaxdii dambe ayuu u jarmaaday dugsiga tababarka xalane oo tilmaan lagu siiyey in walaalkii ka shaqeeyo. wuxuu ku beegmay goor subax ah oo wax la kala agaasimayo. askartii ilinka ilaalinaysay ayaa markuu warsame u sheegtay dantuu meesha ka lahaa waxay telefoon u direen dirir, duqiina kursi u dhigeen. intii uu dirir sugayay waxyaalo badan ayuu warsame halkaa ku arkay. wuxuu arkay askar rag iyo dumarba leh oo koox koox loo ciyaarsiinayo. wuxuu arkay saraakiil si habsan u labisan oo sida ay u kala sarreeyaan u kala salaan qaadanaya. wuxuu markii ugu horraysay dhegihiisa ku maqlay af Soomaalida isku gaardisiinayo. inkasta oo uu maqal hore ka haystay, wuxuu kaloo halkaas ka faa'iidaystay lana dhacay markii loo sheegay in ciidamada la gaardisiinayo ay ka kooban yihiin askar caadi ah iyo shaqaale loo tababarayo ujeedooyin kala duwan oo waxtar u leh